بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan usii wadeynaa barnaamijkan ka hadlaynay oo ahaa parenting styles ama noocyada waalidiinta loo qaybiyo marka laga fiirinayo qaabka ilmahooda u barbaariyaan. waxaan ka soo hadalnaa labadii qaybood hore. waxaan ka soo tilmaamnay in 4 nooc loo qaybiyo waalidiinta. waxaan soo faahfaahinay noocii koowaad iyo noocii labaad. hadda waxaan soo gudbaynaa noocii saddexaad iyo noocii afraad. waxaa noo xigi doonta xalaqo kale waan kaga hadli doona saameynta ay noocyadaasi guud ay ku yeelanayaan ilmaha shakhsiyadooda, duruqda kala duwan ee waalidiinta isticmaalayaan, saameynta ay ku yeelanayso shakhsiyadda ilmaha. noocan saddexaad waxaa la yidhahdaa permissive parent, waa alwaalid almutasaahil. waalidkan astaamihiisa waxaa ka mid ah in ilmihiisa uu aada ugu muujiyo kalgaceylka uu u qabo, naxariistiisa, koolkoolintiisa aada ilmaha ugu deeqa oo siiya. waa waalid ilmihiisa waqti badan la jooga oo siiya intuu waqti u awoodo. waa waalid ilmihiisa wax alla waxay ka dalbadaan jecel inuu u fuliyo, isagoo aanan ka fiirinaynin waxaan ay dalbanayaan inay munaasib yihiin iyo in kale. waxaan ay dalbanayaan inay ilmaha xaq u leeyihiin inay dalbadaan, in dalabkaasi uu u fiican yahay iyo inuusan u fiicnayn, in ay shakhsiyadooda wax ka hadlayn karto iyo in kale. wuxuu kaliya ka fiirinayaa in ay ilmihiisii wax weydiistay isagiina uu awoodo ayna tahay inuu siiyo. wuxuu u arkaa in ilmihiisa qaabka uu ugu muujin karo kalgaceylka uu u haayo inay tahay in waxay weydiistaan uu siiyo. waalidkan ilmihiisa mataalib sare uu ka dalba ma jirto, waa ama aada bay u yartahay. waalidkani wuxuu aaminsan yahay caruurtu inay caruur yihiin, ilmo yaryar ay yihiin, wax badan aysan kala garanaynin, hadeertaanna waxay haleeyaan iyo waxa ay maaragtay ka khaldamo inaysan shida lahayn, oo ay weynaanayaan oo aysan maaragtay waqti kala heli doonaan. hadeertaan marka inuu mataalib sare iyo meel sare u jigido iyo inuu wax khaldan ka celiyo aada ugu mashquulo. wuxuu ku mashquulaa siduu iyagii u koolkoolin lahaa, wuxuu siin lahaa u qaban lahaa, uu u wanaajin lahaa ayuu aada ugu mashquulaa. marka saas darteeda loo yiri alwaalid almutasaahil, macnaha wuxuu sahladay wixii dhismihii ilmahan iyo maaragtay sixitaanka shakhsiyadooda iyo koronshimahoodii dadnimo ahaan kuma uusan mashquulin. wuxuu ku mashquulay in uu dadkani ama ilmahani uu koolkooliyo, uu maaragtay wanaajiyo, oo inta uu maaragtay naxariistiisa iyo galgaceylka u ahay usoo muujin karo inuu usoo muujiyo. laakiin wuxuu tasaahulay iyagii dhismahoodii iyo iyagii sixitaankoodii ayuu tasaahulay. nooca ugu dambeeya waa nooca afraad oo la yidhaahdo neglectful parent or non-involving parent, waa alwaalid allamubaali. waalidkan waa waalid ilmihiisa aanan ku mashquulin, waqtina aanan siinin, inta badanna ilmihiisa ka mashquulsan, danihiisa iyo umuurihiisa kaliya ku mashquulsan. bal astaamihiisa waxaa ka mid ah inuu aada u dhibsado ilmaha, la joogistooda, buuqooda, mashaakishooda, aada inuu insicaaj u ka dareemo, inuu jecel yahay inuu ka fog yahay inta badan, intuu joogana inay maaragtay ilmahaas aysan iscaajinin oo aysan soo dhexgelin, isagana uusan dhexgelin. ilmahaasi waxaa ugu badan waalidkaasi ku kalifaya waa 2 shay inuu saa sameeyo. mid waa in ay waalidka isaga duruufo badan ay haysato oo ay maaragtay mashaakil iyo axwaal, taasina ay noqoto xaalad taari ah oo aan xaalad guud ahayn, oo keensatay inuu sidaan غeyr mubaali ka noqdo, uusan ilmihii iyo noloshoodiiba door ku yeelanin. kaliya waxay u baahan yihiin oo guud iyo noloshoodii iyo waxoodii u siiyo, laakiin uusan maaragtay tafaacul jirin, maaragtay isaga ilmihiisa u dhexeeyo barrier ama xateed u dhexeeyo. laakiin noocii hore oo mutasalidka wuxuu kaga duwan yahay, wax mataaliba uu ka dalbayo ama shay uu leeyahay sameeya uu kula xisaabtamaya ma jiro, shay khaldan uu ka celinayo uu leeyahay maxaa u samayseenna ma jiro, wax uu maaragtay xanaan iyo kalgaceel iyo usoo muujinayo sideeda permissiveka aan ku arkaynana ma aha. keliya waxa waaye inuusan ku insicaajin, iyagiina ay iska koraan. marka ilmahaasi waxaan dhihi karnaa waa waalid ilmihii iska dayacay oo meel isaga tagay. sababta kale oo keeni karta waxaa waaye inuuba u arkaba inaysan isaga xil ka saarnaynba arrintaas, xil ka saaranba inuu yahay inuu ilmahaasi waxay cuni lahaayeen iyo waxay cabi lahaayeen iyo meeshay degi lahaayeen inuu u diyaariyo. laakiin iyagii iyo dhismahoodii iyo
dhexgalkoodii iyo inuu arko in arrin isaga qusayso ama u taalo inaysan ahayn. soo wada duub afartaas nooc oo guud ayay u qeybiyeen dadka cilmi nafsiga bartay waalidiinta. noocii koowaad oo ku tilmaamna ahaa authoritative parent oo aan dhahanay waa waalid ilmihiisa ahdaaf sar u dejinaya, ahdaaftaas inay macquula yihiin, sharaxna ula socdo, hagid iyo saciitaan u socoto, dhagaysi iyo niqaash iyo warka ay sheegaya inuu ka dhagaysto ay la socoto, dhiirigelin ay la socoto, inay iyaga isdiraan inuu rabo. iyo noocii labaad waalid isagan ilmihiisa ahdaaf sar u dejinayo laakiin aan ka fiirnayn ma awoodaan mase ma awoodaan, qasab iyo xoog inay ku sameeyaan ku amraaye oo wixii uu arkay inay faa'iido u yihiin, dood iyo niqaashna aanan ogoleen. taasna waa kasoo hadalna, waa noocii labaad. noocii saddexaad aan tilmaamnayna waa nooc naxariis iyo kalgaceel iyo koolkoolin ilmihiisa u sameynayo laakiin mataalib sare iyo xisaabtan iyo waxba aanan la gelinin. nooca afraadna waa nooc labadiiba aan lahaynin, wax kalgaceela ama maaragtay koolkoolin u sameynayna aysan jirin, wax maxay ahayd xisaabtan iyo hagid iyo meel sare ugu yeeridna aysan jirin. intaasaan uga baxayna afarta nooc. waxaa noo soo hartay keliya hal xalaqo oon kaga hadli doono afartaas nooc oo kala duwan duruqday isticmaalayaan, saameynta ay ku yeelanaysa ilmaha shakhsiyadooda. waa mahadsantihiin, la socda xalaqada soo socota.